waad ogtihiin Soomaaliya maanta waxa ka socdo oo muddada dheer socday wax weligeed dhacay ma ahayn wax loo baahnaana ma ahayn haddii qofka bini aadanka ah la doorto waxaana loo doortay baarlamaankii ka horreeyay uu ii doortay madaxweynihii koonfur galbeed waxaa la ii doortay 4 sano 4tii sano markay dhamaatay intayna dhamaanin maalintii la ii doortay bil kadib waxaa la iswaafajiyay dastuurkii koonfur galbeed oo ah xildhibaanada iyo xukuumadda inay isku waqti noqdaan 5 sano iyo saas ku noqotay 5tii sano markay dhamaatay waad la socotaan diyaar baan u ahay inaan doorasho galno anaa codsaday mar ma aha laba ma aha saddex ma aha dowladda federaalka ugu horeeyay madaxweynaha aad buu u mahadsan yahay isku daygiisa wuxuu yiri waxaan midaynaynaa doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ka shaqeynaynaa inaan qabanno doorasho qof iyo cod waxaan ka shaqeynaynaa si dimuqraadiyadda in dalka lagu soo celiyo nidaam doorashooyin waxaan u aragnay wax fiican oo loo baahnaa oo muhiim ahaa in la qabtana ay ahayd qayb baan ka ahayn waana ka shaqeynay muddaan ka soo shaqeynaynay qofba meel buu ku haraayay talooyin badan baan samaynay talooyinkii aan sameynaynay iyo wixii aragtidaanada ahaa iyo garbaduubkii waxay ku soo dhamaatay in dastuur dadka Soomaaliyeed oo dhan u qaylinayaan laga daba qaylinayo loo dhamayn xildhibaanadii eerboorada jiifaan kuwii kala maqan yihiin kuwa kale la qasbaayo in la yiraahdo waa la ansixiyay maalinkii la ansixiyayna la yiraahdo qof dambe oo wax la weydiinayo ma jiro amar la soo saaray la yiri kuwa maqan ma imaan karaan eerboorada laga xiro maanta kadib wax looga baahan yahay ma leh dantii laga lahaa waa laga gaaray waxa la suubiyayna wax Soomaali raali ka tahayna ma ahayn waxaan raali ka ahayna ma ahayn waxaan ku heshiinayna ma ahayn wax la isqasbaayay oo bistoolad madax la isaga hayay one of the two ama waa ku dilayaa ama waa ila jiraysaa ama waa ku dilayaa ama waa ila jiraysaa ama waa ku ceyrinayaa ama waa ila jiraysaa aragtidayda waxba kama bedeli kartid waxba ma oginaysaa wax yeelnaa kan muxuu yahay aniga ku og aniga ku fikiraayo aniga ku haayo adiga shahaado zuur baa ii noqonaysaa wixii aan sameeyo gacanta taagaysaa muddo ku soo jirnay waxyaalaha muddadaas aan ugu soo jirnay waxay ahayd Soomaalinimo war Soomaali amay ka naxdaan haddaad adinkana baxdaan Soomaali amay dhibsataa Soomaalinimada yaan la jecel weyn kala hayn waxaan islahayn miiska Soomaalinimada adinka ku hara halin kaga kala tago awalba Soomaali adinka isku hayseen haddana isku haaya intii tagtay waa tageen balse u soo noqdaan adinkana joogo meesha ku hara intaasaan u joogno joogitaanka asaga ahaa anagoo joogno ee haddana waxaa la yiri markaan waa idin dhamaatay joogitaan dambe kama rabo wax dambe loo baahan yahay ma laha iska bax dadka Soomaaliyeed oo dhan waa og yihiin dalka waxa ka socdo iyo daruufaha lagu jiro heer waxa la gaaray ayadoo cibaado lagu maqan yahay bil Ramadaan ay tahay dad muslimiin la yahay maxay ahaydeen nin walba fasax ku jiro caruurtiisi jiro kacbada jiro la go'aamiyo la yiraaho wax koonfur galbeed la yiraaha ma jiraan waa baabi'inay mana aqbalayno laga bilaabo maanta afgooyo dawladda federaalka xukunto meesha la yiraaho baraha dawladda federaalka xukunto xudur dawladda federaalka xukunto koonfur galbeed dawladda federaalka xukunto wax koonfur galbeed la yiraahana ma jiraan heer la yiraaha la gaaray waa ogtihiin wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka warqad buu soo saaray oo uu ku magacaabayo degmooyin koonfur galbeed xaguu ka helay sharcigaas inaan sharci rabin oo dawladnimo la rabin haddii uu raganimadaas uu leeyahay oo uu degmooyin magacaabayo degmadii asaga uu ka soo jeeday shakhsiyan oo garaway uu magacaabi lahaa oo deegaankiisa oo ognahay waliba inuu san tagi karin haddii uu nin raga yahay oo uu degmo magacaabi karo wuxuu magacaabi lahaa Kismaayo wuxuu magacaabi lahaa Afmadow muxuu magacaabi waayay waxaa la yiraahdaa looyley intay ku nugul yaa macna lahayn oo waxaan sheega qaadanayo aniga yaa walaalkii dilaya aniga annaga waxaan ku taaganahay dastuurka federaalka
qodobkii 120aad oo qeexayo sheegayo wixii xuquuqdaanada ah dastuuriga ah ee doorasho ha noqoto maamulka anaga ha noqoto u madax banaynayo oo dhahayo waxay xaq u leeyihiin inay u isticmaalaan dastuurka state-ka qodobkaas 120aad yaan ku dhaqmaynaa asaana ku shaqaynay aad iyo aad u mahadsantihiin waan kaga mahad celinayaa laga bilaabo maanta koonfur galbeed madaxweynihii saddexaad oo loo doortay baan ahay mana aqbalayo adduunkana waa u sheegayaa faragelintan joogtada ah oo nagula wado weeraradan joogtada ah oo nagula wado ma aqbalayno laga bilaabo maanta amaraan soo saaraynaa tilaab baan qaadaynaa adduunyada iyo beesha caalamka na waxaan u sheegaynaa Soomaaliya oo 36 sano dawlad la'aan ahayd inaysan maanta aysan ku fiirsanin xasan sheekh oo go'aansaday inuu Soomaali si fiican u kala diray civil war ay bilaabato nasiib wanaag madaxweynaha maanta wuxuu xukumaa xamar Soomaaliya ay go'deen intay la ekay waxa u soo haray waa anaga oo xoog nagu haysto uu leeyahay awalba waa la haysan jiray waa idin haysanaya masiirkiina iyo damiirkiina kama wada hadli kartaan anagu waa diidnay mana nala haysanayo horaan u sheegay intuu qof naga mid uu nool yahay dadka mabaadiidan aaminsan saasan ku dhaqmaynaa mabaadiidan dadka aaminsan oo u dhimanayo weligeedba dad yar yaa halganka u dhiman jiray yaa dawladnimada u dhiman jiray yaa dhiigooda u shubi jiray dadkii yaraa oo soo haraan noqonaynaa waana difaacanaynaa dalkaanaga shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad dadka reer koonfur galbeed oo koonfur galbeed u dhashay meel kasta ay joogaan dal iyo dibad culumo iyo caamo aqoonyahan iyo dhalinyaro iyo haween iyo siyaasi intaba waxaan ugu baaqayaa inay u turaan magacaan saddex xaraf oo koonfur galbeed oo la wada leeyahay ayna ilaashadaan qof kasta oo reer koonfur galbeed oo tabasho qabo cabasho qabo wax loo dhimay been loo soo sheegay rabo in la qanciyo diyaar baan u nahay waa soo dhaweynaynaa gogol nabadeed baa fidsan intay fidsan tahay ka soo qayb gala wixii ay qabtaan noo sheega nagu qanciya talada koonfur galbeed baa iska leh xamar laga mara xamar dawladda federaalka degan dalka nidaam federaal u qaatay maamulkii waa la daadijiyay maamul kasta shaqadiisa doorashadiisa xukunkiisa magacaabistiisa asaaleh dastuurkiisa u qoraayo oo ogol dastuurka federaalka u ogol xadgudubka iyo burburinta iyo dhaqan xumada iyo handadaada hanagala daayo waxaan mar labaad ku celinayaa dadka Soomaaliyeed oo micnaha leh oo Soomaalinimadaba aaminsan dadka madaxweyne xasan sheekh saaxiibada la dadka madaxweyne xasan sheekh qaraabada la dadka uu wax ka maqlo madaxweynuhu nin weyn baa tahay wixii aad soo sheegtay waa soo sheegtay 70 jir iyo tahay 70 jirna waxa u haray 70 kala ma aha aakhiraad leedahay lacagaan bixiyay dad Soomaaliyeed hawlayn lacagta Soomaalida ka muhiimsan lacagta baxday oo aad leedahay doorashadan kama samraay lacagaan ku bixiyay lacagta adimaadan lahayn markii lagu dooranayo hal shilin maadan wadan lacagta Soomaaliyeed ahayd isku day fiican baa sameysay waa dhameystiri weysay isku dayga asagaha Soomaaliha ku kala qaybinin lacag darteedna noo dilin haddii lacag darteed aan noo dilayso lacagta intay ahayd noo sheeg Soomaali baa naga bixinaysay waa iska bixinaynaa ana dhameyn dalkan waa hal dal oo federaal waaye 10 sharci iyo 10 shaqo looma samayn karo maadaama uu hal dal yahay haddii la yiraaho saddex isteediyada qaarna waxay aadayaan doorashadii dadbaneed isteediyada qaarna waxay aadayaan doorasho toos la yiraaho ma laba dal noqonaynaa maxaa isugu imaanaynaa aniga iyo Jubbaland laba isteed oo daris ahanahay oo isku dad ah oo isku deegaan ah oo isku dhex jiro oo la kala garanayno labada anadii isteed midna meel kale u aadaya midna mabada kale u qaadanaya soo hal dal manihin soo hal sharci malihin soo hal dal suur malihin marka waxa qofka bini aadanka loo sheegayo wax aqliga bini aadanka galay inuu noqdaal rabaa weligayna waa ka talinaynay oo waxaan lahayn madaxweynuhu noo miiri u tartiibi layli ma tihid nin weyn baa tahay awrta midna waa layli oo waa kan yarka oo buubo caruurta iyo alaabta muhiimka dhan lama saaro midna waa mid kaayinka oo weyn oo 12 jirka oo la raro wax walba la saaro oo cunuga la saaro
ويل كلا صاروا ترتيب جيوي مدحوينه ونوينا تاي سومالي وترتيبي سومالي وطر واحد قحيسه واحد دشه واحد عيرسه واحد هندده واحد حيرته هكذا aad baan kugu mahad celinayaa mas'uuliyiinta sharafta leh inta fadhida iyo xildhibaanada sharafta leh intii idooratay iyo intaan idooraninba waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu